السلام عليكم سوري أصحاب تقالي جايت كان جالس عطان وعشان مستقر مركز يسكسون قبل نكسنا ولا لا فرق بدون المحرم أبدا كلمة العلم ولا لا هاد عصبة نقص وبيري ولا يورن ولا تشوفه مركز يسكسون قبل نكسنا وحرنا كهالله مقال أبي مركز وحنين بدن وكسب سن قبلها شقالين كأخ مقال كان يفوق سيا قصة تنرين نيروبي أيها بدنا شقالياش قبسدو مالك استورت أفكار كبيرة شقالياش ولا بس استعمالها لكن هذا ياهم دنبئ وحقات ماركين وحاله وبس إفبح يعني بعدين حنين بنك نيروبي وحان أركي قبر شقالة أو غير سمعت وقدر ربط أو لبقتي قبل أو ماركين مقال لقصة دوبي دمنان قبلها ماركين كي يكونوا للسوماليات يعني كفوا جنادان in gabdhaha shaqaalayaasha ay markaan xuquuqdoodan iska ilaaliyaan ay ahaan iska ilaaliyaan xataa nadaafadda kale haday dirsan waa caadi laakiin in cuntada u dirsanin mid kale ee gabdhaha qaar oo guryaha ka shaqeeyo familada qaar ay u shaqeeyaan ayaa ku kalifayo inay markaan dhibaateeyaan oo qofkii waa bili aadan xuquuq u leeyahay xuquuqdiisa in iska ilaalinayo maanta oo qofka waa lagu shaqeeynayaa qofkan waa bili aadan marka cadaadiska ka badiso qofkina ceeb ku qaadaya saas darteed ayaa waxay keenaysaa in dhibaato nafsiyan kala kulantaan hadda gabadhan waxa la sunta dooliga ay soo qaaday cid ay cunto ugu dareysay kadib ayaa la ogaaday dabcan in kaamirad jikada ugu xirneen waa laga yaabaa mid kale gabdhaha kaamiradaha jikooyinka ugu xiran yihiin waa wax fiican kuwa ugu xirneen waa ku xirna ay ku xirtaan had koor qaaladan waa ogeedeen waxa loo bixiyay Mrs camera loo bixiyay laakiin hadirtaan dadku wada fahmeen gabadhaas xidigay ifoojigneed inay ku saxsaneed waana wax laga xumaado markino gabdhaha in isku sii daayo qaar waxa jiro kaadidooda markino weelashii alaabtii guriga isticmaalayo ay ku kaadinayo la soo duubay qaar waxa jiro ugaali intay qaadeen ay reerka u kareen inay tuujiga hasqasha ku soo tirtireen wax aad looga xumaada ka socdo Nairobi iska ilaalin meel kasta ay ka dhici kartaa hadda kale waxa ka dhacday wadaad Soomaaliyeed gurigiisa naag u shaqeynaysay ayaa waxa la adigiisa markay guriga hagaajinayso inay had koor ka soo sheekeynayaan malena markay gurigiisa hagaajinayso adigiisa ku cadaysan jirtaa la ilaad ka xanuun la soo booday xanuunku wuxuu yahay lama yaqaano dumarku xanuunsanaa baaritaan lagu sameeyay dhakhtar u tagay eedisa laga soo helay u qaadan waayay waxa la jiray gurigiisa yaa kula joogaa la dhahay gabadha shaqaalaha laga shakiyay gabadha la baaray gabadha waxay sheegtay markii la soo xiray cadayga oo ku cadaystoodadkaas in ayagana kula cadaysan jirtay yani dad waxa jira markuu cudurku ku dhaco dad badan inay markaan sii galaftaan jecel oo qalbiga xaasidka ah ma fahanteen marka taas oo kale tan way dhacdaa in guriga lagu ku sameeyaa dhici karto in ayaga cudur qabtaa dhici karto oo gabdhaha qaar iska soo baaraan laakiin hadda waxaaba socotay in guriga lagu ku sameeyo sida muuqaalkan aan soo arkay waana idin wadaagi doonaa Aya jina yako? Irene Chenyat. Irene harakisha uniambie vile ulinifanyia. Vile uliniambia nitengeneze kitchen Kwa nguvu mama sikusikii. Nilichukua hiyo dawa ya mende. Nikaweka kwa chupa. Kwa chakula na kwa maji. Chupa ni gani? Sauti isikike. Ya mtoto. Ya mtoto. Chupa gani? Elezea vizuri. Nakata hapo. Kwa nini Irene ulitaka kuniua? Deni yako ilikuwa nini? Ile siku ilikuwa usiku. Ongea kwa nguvu Irene. Vile uliniambia. Ongea kwa nguvu usikike. Vile uliniambia. Kazi imenishinda niende nyumbani. Sema mimi ni kesho. Ongea kwa nguvu Irene. Ondoka hapo. Vile uliniambia ni kama kazi kwa nguvu, ni kama kazi imenishinda niende nyumbani. Vile uliniambia kama kazi imenishinda niende nyumbani. Ongea kwa nguvu. Lapo ndio nikakasirika. Ndio nikafanya hivi. Ulifanya nini? Nikakuwekea dawa. Dawa gani? Hizo unapeana kienyeji dawa ya mende. Rudisha vitu huko. Aki bwana ulitaka kuniua. Manyimba. Sema tu kweli mimi nitakusamea.
Nilikuwa nimekasirika vile uliniambia ati kazi imenishinda niende nyumbani. Uliniongea kwa nguvu, uliniwekea sumu wapi na wapi? Kwa chakula yenye iko kwa fridge. Kwa hiyo nini atange yenye kwa hapo nje. Ongea kwa nguvu. Mtungi ya maji yenye kwa hapo nje. Na kwa hiyo damosi ya mtoto. Please hala iska ilaaliyo gabdhaha u shaqeeya midda kaleeto ilmaha aa uga taganaysaan iska ilaaliyo oo ilmo walba ha uga taganina nadaafadoo kaleeto hadday idin qabato qofka xilliga duhurkii oo kaleeto hadday daasho nasiiya maalin kasta dharka dhaq hadhiinina nadaafadda haddaa la qaban kartid caawin haddaada caawin karin qaylada ka dhaafa waa laysku soo dhigtay Nairobi xaaladeedu aad iyo aad u xumaatay meelo badan dhibaatooyinkaas way ka dhaceen Uganda xataa dhacdooyin saas camal way ka dhaceen laakiin badanaa intay u badan tahay Kenya u badan tahay in arkin shaqaalayaashii hadirtaan ay waxyaalo badan sameynayaan wadankan waad aragtay Kenya maanta xaaladiisa qasan tahay in la yiraahdo haweeneyda si weelaa oo soo baxay subxaanallah ilaahay islaamka ka badbaadiyo intii dhibaato ku gaartay ku dhimatan Allah ha naxariisto inteena kaleeto islaamna Allah naga badbaadiyo meel kasta doonaa Allah lagu amaansado marka muuqaalkaas aragay inaan idinku dhiirigeliyo gabdhaha Nairobi jooga ee u joogaan gabdhaha ee caawiya gabdho fiican way jiraan oo gabdhaha caawiya isfahansan yihiin gabdho caawiyana way jiraan oo ayagu sabab u noqdo in la dhibaateeyo kullu ma weelaysan shaqaale iska dhaafa laakiin iska taxadara habeenkii gabadha hadii kula jiifanayso kaleeto gurigaaga si fiican u soo xiro furayaashaada ka baxsan meesha maxaan ku radaa qolka adiga jiifanaysid ka soo xiro qolkeeda gooniha u ahaado waa kaas dad fadhiga jiifiyay dad jikada jiifiyay dad qol jiifiyay inta dadku isku jiraan laakiin si kasta ahaataba foojignaada gabadha horeeto la dhibaateeyo aragteen shaqaalaha nin u balamisay albaabka markuu ninka furay gabadha yareed guriga looga tagay dhibaateeyay waa aragteen sidoo u galay xaaladaha way xun yihiin ayaantan hala isku badnaado gabdho shaqaalana laafka karo inta kale ee mid kale to gabdhaha reer Nairobi waxay rahaan Nairobi meel qabow maxay u jiray dhar lama dhaqi karo alaab lama dhaqi karo guri lama tirtiri karo naag shaqaale lagama maarmo ana waagi hore saas run u maleeyo markaan hadda arko gabdhaha qurba joogta oo ma arkin wax noo soo duuduubaan si noloshooda u maareeyaan wadankaas barafka ka dhacaya ugu noolyihiin wax u qabsadaan maasha Allah u kartibin waxaan isdahay gabdhahan ayaga iska dhaadhiciyay iyana waa laga qabsadaa shaqaalayaal laakiin halfdhay la qabsadaa wiil jiraan dad la siixdaan adista halfdhayda roon laakiin dadka maadaama ay kamina balaaran yihiin halfdhaydu ku dhibadan tahay qofka markuu la siixanayo waxay xilliga rabaan inay wax u dirsadaan adii waxay ahaataba waxaa loo baahan yahay taxadar dheeraad ah inaad samaysiin ayaantan xaaladdu way qasan tahay muuqaalka hadda ma arkino soo gashay oo fiirsatay leed ii saara ii share gareeyo xataa dalay ii saartaan way iga badan tahay walaalaha igu soo biiraayo maalmahan anuu xataa waxba soo duubaynin update aad iyo aad ugu mahadcelinaya soo dhawaada nimankiina waa ismarteenina saakalaah qeyr sida quruxda badan ama arkino igu soo biiraysaan walaalaha community soo qoro dhammaantiin aad iyo aad ugu mahadcelinaya muuqaalka leegtahay ki iloobin leegtu xunuuya iyo gelin muuqaalka meel dheer gaaraya qol YouTube ka share gareynayso insha Allah hadii wax kaas aska waqadno insha Allah waana soo noqday muuqaalada way joogteen doona hadii Ilaahay raali ka noqdo waana hadsantihiin leegta kaliya iloobin saakalaah qeyr